tubta horumarinta arrimaha bulshada ay ku dhan yihiin wasaaradaha ka shaqeeyo guud ahaan xiriirka arrimaha bulshada waxaana looga hadlay ajandooyin muhiim ah oo hordhac u ah ajandooyin rabo in la geeyo golaha wasiirada insha Allah waxaa horta wasaaradda gargaarka ayna siisay dulmar ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee waddanku maanta marayo inkastoo roobab fara badan da'een alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddana waxaa jirta in la leeyahay roobabka maadaama ay soo daaheen in ay sababi karto inay cunno yari ama sicir barar cunnada ku yimaado uu jiri karo marka arrintaas ayaa wasaaradda ay si qeexan noogu soo bandhigtay oo aan la wadaagi doono hay'adaha iyo wasaaradaha kale ee quseyso si lisu daba dhigo waxaa kaloo laga hadlay arrimo ku saabsan dabagalka ay wasaaradaha rabo in lagu sameeyo rubaca labaad oo hadda dhammaaday junior ama quarter 2 dhammaaday isbuuca soo socda aan kan ku xigaba waxaa bilaaban doona isla xisaabtankii wasaaradaha oo wixii ka soo qabsamay rubicii koowaad iyo rubicii labaadba marka wasaaradaha waxaan rabnaa inay la socdaan in ay isoo diyaar garoobaan inay one-to-one-kaasi ama foolka wasaaraha uu qaban doono uu dhici doono kadib waxaa dulmar lagu sameeyey meelaha ay wasaaradaha joogaan iyo waxyaalaha loo baahan yahay inay cadeymo keenaan inay qabteen iyo in kaleeto intaas ayaa maanta looga hadlay waxaana shirka daadihinayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka mudane Mahdi Guuleed